بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan aad ugu salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed magacayga inta lagu garanaysaa kulli wajiyada halkan ka muuqda waxaan filayaa magacayga ku cusbeen waayo cabdi isaaq garanaysan waa maxamed xamed kale ciro waa ahmed maxamed arshir waa ayuub harun ibrahim waa cabdi isaaq carab dhammaan inteedina waxaan fanaaniin iyo macallinkooda iyo ninkaas oo musishinkii ayuub harun kulli badan waxaan yaabaa inaad magaciisa aragteen waxaan halkan maanta ku duwaynaa clip aad quseeya amniga nabadgelyada Somaliland marka inta laga yimaado waxa maanta halkan nagu kacay fal aad iyo aad u furxun jirdil cayb xabad rasaas iyadoo ay nagu sameeyeen qaar ka mid ah ciidanka qaranka Somaliland oo waliba filayeen inay laanta sirdoonka yihiin oo ragga magacyadooda ka xasuusto nin ka mid ah la yiraahdo dibir ninka noo keenay la yiraahdo alla magan waxay nimankaasi u socdeen inay noo sheegeen in anaga nala fadhiyo musishin maxamed yara la yiraahdo la qabanayay xirayaan ay doonayeen maxamed xuseen abane musishin cilcigu laba qaado nala joogo reejkiga waxay sheegeen ay ninka u socdaan halkii dawlad waxay sheegeen in ninka u socdaan maba xuma qofku kiisu gal karaa wala qaban karaa waxaan weydiinay sababta ku xirisan iyo warqada ku xirisan nolosha maxaa warqada ka halsan maxay ban lagu xaqiiqeynaysan maxaa idinka idin qusiisan lagu markaan dabacayna hadalna waxaan lagu bilaabay saasta waxaan lagu bilaabay gacanta qoriga dibadiisa la dhacay la dibal la dhacay madaxa la iga garaacay ana team ma nan iska celin karo waano daan ugu afar nin bana iyaguna afar bay ahay waxaan ixtiraaminay waa ciidanka iyo dariiska iyo dowladnimada xabada la ridayay waxa rasaas iyo carruuraha deel uga dhexridaya kulli cid oo qosaysa kala dunta laakiin waxaan sheegayaa muwaadiniinta reer Somaliland يعني قفل وشرعي وده ومدة واحد وحكنا هذا وشرعي وحنا وصلنا وشرعي قاعد يعلنها هدين من كاسته وإحنا لو قدموا ويوم قرنيا وأمر جسمنا لنا بتقولي سمنا الملك ودم بيتنا تو وحنا الله يحقق كار بيحسنا يلا ورد من ذلك الشيء كان من كان على السود أيو وحنا كلنا هلا شجاع هلا عتيو وانكب حلو شو الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرتو هذا الكينتي أمي مسند بعد عشان بشري ساو شري من مرتي أو مجيشنا أو محمد هلا oo baada faanta kamida oo martinoha ayaa guriga loogu soo galay niman ciidana oo aan ixtiraamin oo rasaas lagu riday waa bil rabadaan deejar iyo caruur iyo ayaa jira adigu nimanka askarta si ixtiraam leh nolomay dhaqmin ninkaan oo ma sheegin waxa la waxay ku haystaan ama warqad sharciyo marka qofka bilaadka dib u gali kara warqad waarana oo ama dacwada oo ICT oo ay dibulgana amrayo haystaan fasax ay soo galaan lameysida nimankaas maray sheegin yani ninkaasi wixii ay ku haystaan markaan daan wallahi hadalna ku ninkaan ugu martinooyay maxaa meeda warqadii fasaxaydii waxa garanaysa ku xirisan iyo garanaysa rasaasta la bilaabay farka dagaal iyo jididka garanaysa nabarab ba ku dhacay adigu waan rasaas bay nagu rideen anaguna waxaan leeyahay dalka xuquuq muwaadin iyo ixtiraam baan leenahay sharcigana waxa loo sameystay kala dambeyn si ruux badan oo lama dhaqmin waxaan markaa farayaa ciddii ay qusayso laamaha amniga in arrinkaasi degdeg ah wax looga qabtona lagu soo jawaabo بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aad baan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta xigta sida nimankaas bay u sheegeen waxaan ugu dhacay fal ka baxsan sharciga Somaliland ee waddanka u degsan waxa lagu sameeyay fal u dhigmo midka ay bixisada sida loola dhaqmo ah annagoo halkaa iska joogno guriga iska joogna ayaa Sooman وإلهي وصوما وأنا قلنا واحد يعني واحد تبيه وأنا قرن كيجي وطن كجلي أيا نكاسو نوع مرتيها أنا جا ونا لتشوبي أيا لوين مركي أن ويديني شرقي البحري مي يوم حاكو حرسان يوم حكو يدي سياي واحد علينا نبي قعنا نوقاضو إن قرن لنبركدو إن سي أدمو سي لبعيدا اسكو لنا وكلا ولا نورد رقم intaa kadib waxaan leeyahay dadku waxay ku kala awood badan yihiin dadku waxay ku kala dambeeyaan waa sharciga qofna qofka ma awood badan hadii sharciga la tuuro marka waxaan leeyahay sharciga ha lagu dhaqmo ninkaana sida ugu dhaqsaha badan ha loo sii daayo waa hadii la doonayo inuu sharcigu soo shaqeeyo oo waddanku si caadiga ah u shaqeeyo oo sharcigu shaqeeyo aad iyo aad baan u salaamayaa
بسم الله الرحمن الرحيم نور معين حق التبر saaka anagoo Soomaali baa naloogu soo dartay guriga waxaa lahaa ninkan codsaaq carab warqad sharci oo loogu soo galay guriga ma jirin in loo martay haba loo socday haba loo socday wax sharci oo maanta lagu kaxeeyay ninka imika anu ma garanayo nimankaasina waxay inoogu hanjabeen oo inoogu cagajugleen xabad inoogu riday inoogu qabtay ma garanaysaayay dirays iyo qoryo iskamaanu celin garan waayeen ma garanaysaayay wax naloola haray ma jirto dee anu waxaan idhaahdo ma garanayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka salaamayaa dhamaan shacabweynaha reer Somaliland waxa weeye saaka anuu hurda ayaan soo kacay waxaan soo kacay gurigeygii oo foodo iyo rabshad iyo buuga adduunka niman ciidan ee la dhex taagay gurigeyga saas baa laga dhex riday waraaq laguma soo gelin amar la'aan baa gurigeyga lagu soo galay anagu dad shacab ma nihiin ee waxaan bulshadii reer Somaliland anaga sidii indhabeelka loola dhaqmo gurigeyga inta la yimaado rasaas lala dhaco oo dad anaga noo martiya la qaatay waraaq lagu xidhay in la sidii oo taas aan ka timid jeebkooda ayagu kala yimaadeen iyaga ka jawaabi doona ta kale sheegaya waxay tii sharcigan waxay noo sameeyeen ku kala beeno in fanaaniinta reer Somaliland lagu dilo oo lagu dhibaateeyo lama sameeysan nimad cabdi ajun nabar weyn baa la gaarsiiyay xal doonayay in lagu sameeyo aarsho waa la dilay waxa weeye anaga gacan bayna noo qaadin dadkan kaga baxsanay waxa weeye waxaan u baahanahay war sifada sharciga ah ee gurigeyga nimankaas inta ku soo galeen allamaga ninka la yiraahdo iyo ninka kale magaciisa muxuu ah iyo ninka dibir la yiraahdo riisanka inta gurigeyga ku soo galeen iyo laba nin oo kale wateen riisanka gurigeyga inta ku soo galeen qof aniga marti ah ay ku qaateen ee waliba anaga nagu dileen gurigeyga dhexdeeda rasaas ugu rideen riisanka anaga aan loo sheego iyo halka ninka la geeyay sababta anaga la garay aad ay ismaamay